maxaa kala socotaa sheekada gabadha ugu foosha xun Soomaaliya ee la soo bandhigay? Waa muuqaal xiiso badan ee higa tigneela daawilaa dhamaadka waxaad ogaan doontaa wax badan oo ka qarsoon. Asxaabtan u shargaree follow ilegna waa inoo muhiim ah sanid. Haddii aad aragtay gabdho sheegaya inay yihiin kuwa ugu quruxda badan Soomaaliya, hadda waxaan idiin hayaa gabar sheegtay inay tahay mid ugu foosha xun Galmudug iyo guud ahaan Soomaaliyaba. Gabadhan ayaa muuqaal iska soo duubtay oo ay soo dhigtay barteeda TikTok. Waxay ku sheegtay inay tahay gabadha ugu foosha xun Galmudug iyo Soomaaliya oo dhan. Naag madow oo ah gabadha aan sheekadeeda idin wado ayaa waxay sheegtay inay leedahay astaamaha lagu ogaado foolxumada, sidaasna ay isku soo bandhigtay. Waxay sheegtay inay aaminsan tahay inay tahay gabadha ugu foosha xun Galmudug iyo guud ahaan geyiga Soomaaliya ee ku faraxsan tahay. Gabadhan oo hadalkeeda sii wadatay ayaa waxay sheegtay in wiilasha reer Galmudug ee wacaan kana dalbadaan inay la kulmaan, balse marar badan ay ku adkaysay. Intaas kuma aysan sameeyeen, waxay raacsatay inaysan marnaba waqti u haynin la kulanka wiilasha reer Galmudug oo ay danaheeda qaaska ah ku mashquulsan tahay, wayna ka raali gelisay maadaama aysan la kulmi karin. Cajiib. waxaan ahay gabadha ugu foolxumada badan Galmudug. alxamdulillah waa ku qanacsanahay foolxumadayda. waxaan aaminsanahay Soomaaliya qof foolxun inuu joogin. wiilasha Galmudug oo dhan ay diyaar mar walba soo wacan ila kulanay dhahan, laakiin aniga ma bulshada kale hoos waqti ma hayo. waxaan leeyahay garal noqon walaalhay dawladda ka leeyahay. waxaan leeyahay inay yar afweyn samweyn leeyahay maasha Allah. waa isku kalsoona wallahi naga soo cayn waxa la abaayo. Hadalka gabadhan ayaa ku soo aadaya iyadoo saacadii la soo dhaafay baraha bulshada ay qabsadeen sheekada gabar Soomaali lagu magacaabo oo sheegtay inay tahay gabadha ugu qurxoon Galmudug, taas oo tilmaamtay inay leedahay calaamado lagu garto quruxda. Waxay sheegtay in ragga oo idil ay wacaan si ay xiriir u sameeyaan oo ay u guursadaan iyagoo diyaar u ah inay wax walba ka bixiyaan, balse aysan iyada diyaar u ahayn arrintaasi. Ragga dhan way soo wacaan, waxay ugu dhahaan haddaan gabadhan oo kaliya heli lahayn wax kasta waan ka bixin lahayn, ayay tiri. iyadoo hadalkeeda sii wadatay ay sheegtay in markii ay marayso wadooyinka Gurceel ee dadka dhan fiiriyaan ayna isku xishooto in gabadha ugu qurxoon Galmudug ay tahayna dadkii u sheegeen. Markii aan magaalada marayo dadka dhan way soo fiiriyaan, xitaa odayaasha. aniga waxaan ahay gabadha ugu quruxda badan Galmudug, taasna dad badan ayaa ii sheegay inaan ahay Mrs Galmudug, ayay raacisay. iyadoo iscajibinteeda sii wadatay ayay sii hoga tusaaleysay in dad badan ay gaariga joojiyaan, kuwana ay dukaamada soo xiraan si ay ula hadlaan ayna xiriir u sameeyaan. wadada markaan socdo oo dukaanka aadayo, dad badan ayaa gaariga joojiyaan, xitaa kuwa dukaamada soo xira si ay la hadlaan oo ay xiriir la sameeyaan. anna danka ma lihi oo ma dhageysa hadalkooda, ayay tiri. gabdhaha Galmudug muddooyinkan dambe waxay soo bandhigeen muuqaalo kala duwan kuwa oo naxdin la yaab lahaa, hadalhayn kala duwan ka dhaliyay baraha bulshada. qaar baa sunacabay jacayl dartiis, taas oo Gurceel looga bixiyay magaalada jacaylka. kuwa baa hadda ku faanaya qurux iyo foolxumo. cajiib. haddaba daawada arrintan sidee u aragtaa adiga?